kusoo dhawaada barnaamijkan oo barnaamijkii ugu horeeyay ee barnaamijyada taxana oo haddii la yiraahdo idinka iman doona waddanka Zambia ee ku yaala Afrikada dhexe laguna tilmaamay inuu xigo dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika waddanka Zambia taariikhadu dheer ay ku leeyihiin dadka Soomaalidu haddaba taariikhda Soomaalidu ay ku leeyihiin waddankan iyo waxyaabaha ay qabtaan iyo meelaha ay ku kala nool yihiin iyo waxyaabo kale oo la xidhiidha waddanka Zambia waxa iga waramaya gudoomiyaha ururka saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Zambia Maxamuud Maxamed Xasan oo ku magac dheer Hiiraan gudoomiye ku soo dhawo telefishinka Universal aad iyo aad u mahadsan Cabdi Salaam waana dhaw gudoomiye dadka Soomaalida ee waddanka Zambia ku dhaqan waxa lagu yaqaanaa inay dad ganacsato yihiin waxa ugu weyn ay ka shaqeystaan waxa ugu weyn oo ay ka shaqeystaan ilaa maalintii ilaa hadda وقاعدين ليه ترانسبورت كيف شغلت بابور بيليهين ما دام ودكم دي ودن بدل وصلحين ودمات بدلنا أي كوركسيه سوماليدو وكلا السجود أقوي وهو هاي ترانسبورتيشن لكن ده الصراحة حد الواحد بالعادة سوماليدو إنه كلام يلعب والشده والشده هاي سوماليدو حد ودن كليهين دوري طبعا والشدود هو وين بجاريان waxay kaloo galeen Cabdisalaam oo dhinaca muxuu ahayd petroleumka oo waxay leeyihiin petrol station waaweyn oo hadda ku arkay magaalooyinka weyn markaa tagtid shaarica aad ku arkid warshadahaas waxay soo saaraan markaa warshadahaas waxay isugu jiraan kuwa soo saara galley iyo kuwa kaloo yar yar oo sameeya saliidan cuntada lagu cuno saliidan cuntada ah ay soo saaraan marka ilaa 12 warshadood kaliya waxaa jirta Soomaali kale oo iyagu socotaa ama tahriib lagu tilmaami karo oo badanaa beegsanaya waddanka South Africa oo kale kuwaasi waxaan ka warhaynaa marar fara badan bay idin soo maraan marinkoodu waa halkan waqtiyada qaarkoodna dhibaatooyin baaba ka qabsada kuwa iyaga ma caawisaan amsalaano horta kuwa ma ogaan kartid markii meesha maraya waxaad kaliya ku baraarugaysaa ama aad ogaanaysaa markii lagu yiraahdo dad Soomaaliyeed ah la qabtay oo xabsiga ku jira laakiin de markay marayaan waddankan maadaama aan la ogolayn dad bilaa sharci inay iska maraan annaguna ma ogaan karno runtii oo nooma yimaadaan oo meelaha joogno iyo lagu ma arko laakiin de markii la qabto hadiiba la qabtaba waa u gurmanaa dadka Soomaalidu way u tagaan hadeer Cabdisalaam oo dad baan meesha waliba ku xiran qaar baa xiran qaarna laba maalmood ka hor baan ka dirnaa waxa loo diray xuduudka Tanzania marka hadii la soo sheego inay dhiban yihiin asalaam Soomaaliyeed oo gurmanaa oo waliba si aad heer sare u ah oo dawladdan aan kala hadalno oo gurmanaa marka urur ahaan u gurmanaysan dadka tahriibayaasha oo kale ama caawinaysaan dadka Soomaalida ee waddanka ku dhaqan waxa la oran karaa wada shaqayn wanaagsan bay ka dhaxaysa dawladda Soomaaliya dawladda Cabdisalaam aad u mahadsantahay wada shaqayn wanaagsan Soomaalida ka dhaxaysa iyo waddankan dawladda Zambia ilaa de maalintaas Soomaalidu jireen ilaa hadda Cabdisalaam xiriir fiican oo wanaagsan bay Soomaalidu la leedahay dawladda waddanka hadda dawladdu isma bedelaan hadda tan jirta xiriir fiican bay leedahay maadaama Soomaalida waddankan ku nool ganacsato ay u badan yihiin qaarkoodna ay aad u ladan yihiin waddankii isaga maxaa ku beeraysaa Cabdisalaam de waddankii anoo dad Soomaaliyeed baan halkan degan wax kasta oo nolol kaga soo baahdana waa ka qayb qaadanaa laakiin waxa xusid mudan dhowr abaaraha ka dhacay Soomaaliya dhowr jeer xataa mar baan dad u dirnay oo aaday oo muxuu ahayd wixii anagu tiri karnay geeyay tii ugu dambeysay hadda Cabdisalaam wixii anagu aanu tiri karnayna waa karnay dadka muslimka waddanka degan iyaga laftooda waxa uu sheegay in ka qayb qaateen Cabdisalaam dadna way u direen oo dad halkan ka tagay oo aaday ilaa Muqdisho tagay oo muxuu ahayd geeyay caawimaad geeyay markii aad iyo aad baan isugu xirannahay waddankii
dad Soomaaliyeed waa nahay oo waddanku waan horan waddanka Zambia wuxuu caan ku yahay xagga macdanaha kuweeba ugu caansan waddanka laga qodaa waxa laga qodaa oo waddankuna uu ku tirsan yahay kobar macdanta ugu badan oo ka soo waa naxaasta taasaa laga qodaa dhowr mayn bayna leeyihiin marka macdanta ugu badan taariikhda Soomaalida waxaad ii sheegtay muddo aad u dheer oo ilaa 60meeyadii inay waddanka joogeen oo markaas ay soo galeen Soomaalidii ugu horeysay asal markaas ay soo galeen sida la ii sheegay laakiin xilligaas ay soo galeen ilaa haddeertaanna waa joogaan safaaradana waayahaas ay soo galeen waa ku dhow baa la furay waxaa kaloo cabdisaan xusud mudan safaaraddu hadda waa dayacan tahay community-ga raba inay dhisaan oo u istaagaan oo ay rabaan inay sameeyaan marka community-ga Soomaalida halkan jooga cabdisalaam community Soomaaliyeed oo isku xiran weli magacii Soomaaliya baa ka shaqeeya marka waxyaalahan kale oo Soomaalidu markay banaanka soo aaday ay waddanka kala soo guudnay oo qabiilka waddanka uu ku yahay marka dadka Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Zambia Maxamed Xasan oo ku magac dheer Hiiraan oo igu warramayay magaalada Lusaka waxaanu joognaa meel ku taala duleedka magaalada Ndola ee waqooyiga waddanka Zambia guud ahaan waddanka Zambia hogaamiyaasha dhaqanku awoodo aad u waaweyn bay leeyihiin dhulka ku yaala deegaamada ay xukumaanna iyaga looga dambeeyaa oo xitaa dawladda dhexe mararka qaarkood waxa la sheegay inay ogolaanshiyo uga qaadato hadiiba baahiye ay timaado maanta waxaanu haddaba nasiib u helnay in mid ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee deegaankan ugu awoodda weyn ee ugu magaca roon leh aanu la kulanno aad iyo aadna waa loo xushmeeyaa dhaqankooda waxa la maraa hab maamuus cajiiba oo aan nala daawan doontaan haddaba hogaamiyaha dhaqanka ee maanta aan u tagayno waxaa iga warramaya Suldaan Cali Baashe Barre Suldaan hogaamiyahan dhaqanka ee maanta aan u tagayno maxaa la yiraahdaa wada Suldaan waan ka cudartay wala ka daad igu Suldaankii qurbaha waa saa hay waxa la His Royal Highness Senior Chief Chawale of Lamba People oo macnaheedu yahay boqorka sare ee qowmiyadda Lambaha ee Chawale waa title-kiisii qowmiyadda uu xukuman waxa la yiraahdaa Lamba marka intee lag bay degan yihiin Lambuhu waxay degan yihiin ilaa wiiraan distance inoo jira 200 kilomitir dhinac kasta inoo jira adigoo iska socdo oo marka looma galayo jawaalaha waxa loo soo qaadaa hadiyad lagu maamuusayo markaad soo booqanayso qaar shaqaalihiisa kamid ah ayaa imika horgelaya ilaa aanu uga tagayno odayga ama chief jawaalaha sare marka haddaan dhaqaajinaynaa waxa kaloo nala socda gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee waddanka Zambia Maxamed Xasan iyo rag kale oo kamida odayaasha iyo dhalinyarada jaaliyadda Soomaalida magaalada Ndola marka inaga qudhaynu wafti xoog leen ku soconaa Suldaan waa saas weeyaan laba qowmiyad beenaha way alaabta soo qaada alaabta imka la soo qaadaya waxa weeye alaab maamuus ahaan jawaalaha sare loogu geynayo oo lagu maamuusayo waxa weeye alaab sooryo oo kala noqonaysa ama maamuus oo adigoo faramadan oo iska dugdug leh ayaa la diidaya jawaalaha sare inaad u timaadid dadna waxaanu sidnaa raashinkan waa shuurada oo waddankan aad looga cuno iyo alaabo kale marka haddaan gelaynaa habraha qabo soo dheer halkan ka bilaabmaya jawaalaha sare loogu tegayo He needs a crane. Oh, yeah. You're absolutely right. Hello.
Hi, how are you doing? Fine. My name is Abdislam. Abdi Abid Abdislam Okay. from Universal TV. Okay. We're based in London. Okay. Thank you very much for honoring us. Thank you. You can take a seat. Thank you. Habari yako? Salama abiyaku. Mzuri sana. Asante sana jibu. Asante sana. Mkwai. Gabi. Chief. Ngoma mlisha. Hapo shamba inafanya. Mlisha. MY. Na mtoto. Mtoto. Na mtoto. My name is Muhammad. Muhammad. Thank you. Okay. How are you? Where you going? Where you going to speak Bemba? Achana. Mlisha huyu. Na mtoto. Okay. It's not a diary. I need the diary which is in there. waxaan uga mahadnaqay senior jawaalaha in aanu aad iyo aad ugu faraxsanahay in qasrigiisa uu nagu qaabilo iyo telefishinka universalna aan ka soconno aad iyo aadna aan ugu faraxsanahay aniga iyo xubnaha kale ee weheliya jaaliyadda Soomaalida ee Zambia in qasrigiisa uu nagu qaabilo and the Somali community in general have lots of good words about you and how much do you know about the Somali social structure? And we have had chiefs like you. Apparently, all I know is I know Somali is going under a lot, has been going under a lot of difficulties in terms of governance and things like that. But apparently, the structure, and as far as chiefs are concerned in Somali, I wouldn't say much. Because I haven't been there, although I was just close to there. Yeah. I was the furthest I've gone is in Kenya's Mandera area. Oh, you've been as far as Mandera? Yes, yeah. Okay. So the little that I know about Somali is because of the friends that I've made in Zambia, those that I met in Kenya, and those that I've actually met in Zambia who have been with for a long time, that I've known for a long time, like the likes of Farah, the likes of Kalifu, and Jama. So, to mention a few. So I've known these people from way back. Yeah, and now I've come to know Ali, who has also come on board here. So they've been good friends, and apparently this chiefdom is one of the chiefdom that embraced Islam from the way they go. Long time ago, centuries ago. Because the first people to arrive in this chiefdom were the Arabs, who converted everybody to Islam. Yeah. Senior Chawalo wuxuu sheegay in Soomaalida markay timaado warka uu ka hayaa ay tahay in dhibaatooyin fara badan wadankoodii ay ku muteen muddo dheer laakiin wuxuu sheegay in Soomaaliya tagino markaa nidaamka qabaliga ee Soomaalida iyo hogaamiyaasha dhaqanka aanu ka hadli kareynin laakiin ilaa Mandera uu gaaray wadanka Kenya gobolka waqooyiga bari dad fara badan oo Soomaaliyeed asxaab u lahaa hadda Kenya noqoto iyo hadda Zambia tahayba wuxuu sheegay Ali oo kale inay saaxiib yihiin iyo rag fara badan oo kale oo magacaabay jaaliyadda Soomaalida aad buu uga mahadnaqay kaalinta ay kaga jiraan bulshada ay la nool yihiin hadday noqoto waxtarka ay u geystaan iyo hadday noqoto dhinaca dhaqaalahaba waxa ay ku beeriyaan from the way they go or biblically chiefs have been the governance force in every given situation. So when you look at our chieftains and our governance stretches way back. Senior Chawalo wuxuu sheegay in ay hogaamiyaasha dhaqanka ee wadankani shaqeynayeen ilaa inta taariikhda la xusuusan yahay waxa kale oo sheegay in awoodo xoog leh ay ku leeyihiin dadka xukumaan waxa uu sheegay tusaale ahaan inay dhulka u qaybiyaan
oo si cadaalad ay ugu qaybiyaan iyo ta ugu muhiimsan oo abu yidhi nabadgelyada beeraha kala duwan aanu ka shaqayno maadaama bini aadamku ay isku mid yihiin wuxuu sheegay oo kale in ay magacaabaan dad ka tirsan boqortooyada oo sida uu sheegay markaa boqorka ama hogaamiyaha dhaqanka caawiya waa sidii cuqaasheenii oo kale waxa uu sheegay oo kale in dawladda ay isgarabsadaan oo si fiican ay u wada shaqeeyaan oo dawladduna si markaasi horumar ay ugu keento dadka deegaankiisa uu boqorku kula shaqeeyo awoodana ay ku leeyihiin dawladda gudaheeda hadday noqoto ta dhexe iyo ta gobolka iyo ta degmada intaba. I'll give an example of yourselves in Somali. Okay, if the chiefs were on top of everything, I don't think we would see a situation of that magnitude. Because if indeed they had the system of governance that we have here, peace would have prevailed. waxa uu sheegay oo kale haddii nidaamka halkan ku leeyihiin waddanka Zambia hogaamiyaasha dhaqanku mid la mid uu ka jiri lahaa Soomaaliya waxa uu sheegay inaanay dhaceen waxyaabihii Soomaaliya ka dhacay sida ay isaga la tahay. Your Royal Highness, thank you very much indeed. You're most welcome. Thank you very much indeed. boqorka nagu sharfay in buugga dadka soo booqda aan u saxeexno deedna taariikhdii isaga qoray de waa ka Cabdilaahi Hareeri imka waxa la hayaa cadeyn inuu boqorka soo booqday marka ragga kale jaaliyadeen u soconay ayaa iyaguna saxeexaya. marka la soo galayo kaliya maha protocolku marka la baxayana si maamuus leh ayaa loo baxayaa oo lagu qadarinayo boqorka. gabadhani waxa weeye dadka la shaqeeya boqorka maantana iyadaa u leh shaqada siduu noo sheegay. How do we do it? If you want to go, Okay. you lay down your head. How do I do it? Jilbaha dhiganaysaa and then Yes, you grab hook, then you okay. Let him finish. Thank you so much. marka laga hadlayo taariikhda jaaliyadda Soomaalida ee waddanka Zambia ragga sida weyn uga warhaya muddada dheerna waddankan ku noolaa waxaa ka mid ah Ciise Faarax Maxamed oo ku magac dheer Ciise Geestiir. adeeraad iyo aad baad ku salaamaya. waa salaamantahay adeer. dhinaca kale Ciise waxa weeye gudoomiyihii labaad ee soo maray jaaliyadda Soomaalida kadib markii la aasaasay sanadku markuu ahaa 1978. عيسى كسر له تلفزيون كيونيفرسال. ما شاء الله الحمد لله إلهي ما هذه الشكر وإسكاله وضع كان إلهي سبحانه وتعالى سيدا عدو شيكتي حريريو وانوغو نمتيها صومالي دون عاد بيقودك انت هل تاليات بانا كتشده وقتها انوغو نمبا إيقوه الرئيي ninkii ku xigay oo Saciid Mas'uul la oran jiray ninkii ku xigay baan ahaa ninkii ku xigay wuxuu ahaa nin la yiraahdo Xasan Mataan ninkii ku xigay wuxuu ahaa Cabdi Abshir ninkii ku xigaa hadda waxa weeye Maxamed Hiiraan. marka dhowrkii sanadoodba sida hadalkaaga ka gartay qof baa haya miya dhowrkii sanada waan shiraa doorasha la galaa haddii qofkaasi qof u qalmo uu noqdo waa loogu celiyaa. gartay Ciise marka adigu waqtigeed haysay gudoomiye ku xigeenkii labaad baa 8 sano 8 sanadood marka adiga dhowr goor baa lagu celiyay dhowr goor baa lagu celiyay oo laba sanadood miya oo laba sanadood markii ugu horeysay goor baad qabatay ay tigay bay ahayd waa sanadkii 80kii. 80kii
sagaal iyo soddon sannadood baa imika laga joogaa goormaad soo gashay markii hore Zambia waxaan soo galay waqtigaan soo galay allah mustacaan 1976 waa 76kii gartay berigaa markaad soo tacabiraysay ma toos baad u timi Zambia mise wadamo kala toomas waxaan soo maray Kenya wada xoogaa soo joogtay waxba hal hameen baan joogay isla hameenkiina waa ka soo baxay markaa socodkaagu ma la odhan karaa adiga Zambia ahaa Zambia ahaa waa ninaan walaalnahay oo Axmed Dheere la yidhaahdaa deganaa gartay oo aan ku soo hiranay haye marka waxaan doonayay inaan amarka ilaahay baa iska lahaa inaan nooli ka qaato oo Sacuud Carabiya shaqadeedii baa furayd oo laga shaqaysanayay oo Soomaalidu la aadi jiray inaan aadaabay yani daydu ahayd laakiin waa ban iska degay inta loo gubay gartay markaad eegto berigaas sida nolosha iyo ganacsiga ahaayeen iyo maanta farqa u dhaxeeya maxaad ku tilmaamaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa u dhaxeeya wax weyn baa u dhaxeeya awalan marka ugu horeysa waqtigaas marba marka ka dambeeya dadku waa ka soo badanay marar waxaa jiray aanan dhalinyaraan waqtiga ahayn haddana maanta waa ku cimrigayaga waa ku soo qaadanay caruur baanu ku dhalay Zambianization baan ku qaadanay sharciga Zambiyaan ku qaatay caruurtaydu way haysataa marba marka hadday ugu badanta hadda adigu ilaa 8,000 6,000 oo qof waa joogta approximately dhinaca xarakada ganacsigana ama berigaas ما شاء الله dhinaca xarakada ganacsiga waxa weeye fill station aanu leenahay waxaanu leenahay hanti guudaa oo guryo ah waxa la leeyahay waxa la yiraahdo milino waxa la leeyahay de waxa la gelinba ma jiro oo wadanka soo marka wadanka Zambia wadan aad iyo aad nabadgelyadiisuna u wanaagsan tahay waxyaalaha Afrikada iyo South Africa noo dhow oo aanu daris la nahay aanu isu dhownahay waxyaalaha ka dhacay oo Soomaalida iyo lagu dhibaateeyo waligeeyo hal mara un baan dhibkana anaga isu keenay wax iska dhacay sidee isugu keentay adigu waxaanu isugu keenay nin dilay wadani nin Soomaaliya nin Soomaaliya way marka uu dilay oo shilkaasi dhacay bari cadawi anaga laftirkayga Zambiyaanku dad badan may naga laayeen laakiin mar hadda adigu yadahay waa inaad ururisaa xoogaa adigu dad wax ma garataa dawladdu ma ay ogeyn yaa adigu wax booboobay oo xaafadda indheega iyo booboobay xerada iyadaan baa teendhooyin gabadhaan dhalay oo muxuu ahayd aroos loogu sameynayay baa lagu soo qaxay oo la isku yimi marka sidaasaan isugu keenay ciiso raggii Soomaalida ahaa berigaad ugu timay walaalkana uu ku jiray Axmed Dheere ma ganacsiyada nimanka qaar la mid u bay sameyn jireen oo gaadiidku ka mid yahay ma transport baan ahayn markii hore way wax kale ma jirin ka bacdi baan ku balaaran marka dambe ilbaxnimadu waa sii kordhaysay dad xadaarad baa noo imaanay hadda caasid baa la leeyahay taangi baa la leeyahay boodi baa la leeyahay waa xagga transport warshado waxa la leeyahay muxuu ahayd waxa la yiraahdo fill station leenahay waxaan leenahay waxa la yiraahdo meelino waxa la leeyahay alaabada dad soo dajiyaan oo keenaan oo China iyo muxuu ahayd Hindiya iyo laga keenaa ganacsiga iyagu u balaaray ciiso takalean jeclayna ku weydiiyo waxa weeye wadanka waa ku dhaqantiisa arkay de aad baa loo degan yahay aad baa looga shaqaystaa wadankiisa ugu xidhantay wadanka iyaga waanu ku xidhanahay waxaana ku hareeriyo ku cadaynaya halkan Soomaali magaca la yiraahdo qof kasta oo Soomaali ah safiir wey isma kala qoloqolayna Soomaaliya burburkii ka dhacay nama saamay waxaasina waxa weeye markasta adeegayaasha
iyo dadka waxaanu ku wacyigelinaa iyo dadka soo kacaya dhaqankii hore ee Soomaalidu lahay maxaa jira haddii wax dhacaan oo waddankan wax ka dhacaan ninkaani waa noora iyo ninkaani waa koonfur iyo ninkaani waa gobollada dhexe ma kala leh Soomaali baa la loo yahay wax kaloo aan jeclahay inaan ku weydiiyo nin ganacsado weyn baa tahay marka aad eegto ganacsiga Zambia iyo wadamadan kale ee la jaarko waddan kasta in joogtaba dad Soomaaliya ay joogaan Zambia maxay kaga duwan tahay baad oranaysaa xagga shuruucda xagga waxiibsiga xagga la macaamilka dadka waxay kaga duwan tahay waxyaalo badan horta anagu Cabdisalaam isma kala qaadqaan qofka ganacsigiisana markasta codkayaga iyo shuuradayada iyo isu-imaatinkayaga iyo wacyigelintayadu waxay u badan tahay in aanu waddankan nabadna ku helno kuna noolaan waxay kaga ganacsigu wuu isbedelayaa acid waagii horeta lama aqoon kabacdi baa acidku meesha la yidhaha Congo وأصلا لقى سوق هذا ساوث أفريقيا ناميبيا لقى سوق ها كونغو لقي أو كونغو لقي أو كوبر كان جوسفي ها مركز ومر كوبر كان قاعد يشري أو كوبر بالقاعد يشري أو واحد قاعد هذا حق له هذا يقرأ ليه تاسواتي حق الصومالي وحشي زامبيا وطنها مركز هذا حق جناعسي إيو نلاش إيو وضمن الكلام حي وجد وانت ضدك الصومالي ده waxay uga duwan tahay isku xiraan ay isku xiran tahay oo ayna iskala qoloqolayn oo ay hal jaariyad leedahay intii waxay sataan u adeegto marka iminka hadda adigu matalan la yiraahdo noorad baa ninkaas ka yimid ama koonfur buu ka yimid oo waa xabar buu ka yimid ma niraahna anagu inta markaa joogta ee lacagta ku haysata ee muuqata oo codkoodu waana sida loo baahan yahay ayaa wixii kharasha iyo wixii magaciisiya bixisa oo dadka muxuu ahayd wacyi geliso oo qofkay wax ku yimaadaan ha way Ciise Faarax Maxamed Ciise Gaastir aad iyo aad baad mahadsantahay